maanta waxaa dhacay waxyaabo waaweyn oo taariikhi ah oo siyaasadda Soomaaliyana taariikhi raad ku yeelan doono saan rajeynayo raad nabadeedna ku yeelan doono waliba saan rajeynayo marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo hogaamiyayaasha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ee galabta qaatay go'aanka geesinimada leh ee loogu danaynayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed mas'uuliyaddii dadkooda ay u doorteen iyo waajibkii dastuuriga ahaa ee ummadda ay ku lahayd ee ay u dhaarteen waxaan leeyahay hambalyo go'aan geesinimo leh xilkasnimo leh ayaad qaadateen taariikhduna way idin xusi doontaa maanta meesha ay Soomaaliya taagneed iyo go'aanka aad qaadateen intaba waxaan idin leeyahay hore ugu socda sidoo kale go'aano dhiiranaan badan u baahan oo kale oo adagaa idinka horeeya qaataan leeyahay iyaguna go'aanka adag markaad qaadatane oo maslaxadda ummadda u qaadatane sharaf iyo karaamo iyo ciziya kaaga kororto wanaagna waa uga soo kordhaa ummadda hambalyaan leeh intaa kadib waxaan sidoo kale hambalyeynayaa asagana prime ministerka jamhuuriyadda xilgaarsiinta xukuumadda xilgaarsiinta prime ministerka ka injineer maxamed xuseen rooble saaxiibkay waxaan leeyahay adigana hambalyo adigana mowqifka aad qaadatay mowqif shariif oo wanaagsan waaye waa mowqifkii looga baahnaay inuu qaato qof prime minister ah oo mas-uul ah adigana waad muujisay mas-uuliyadaada nabadaad u helisay dowladnimadaad u helisay go-aan cadaad qaadatay waa ku mahadsantaa sidoo kale ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan waxaan kula talinayaa inay qaataan awaamirta prime ministerka oo sidoo u tilmaamay xerihii inay ku noqdaan la yiri ay ku noqdaan oo ay waajibkoodii dastuuriga ahay ee dastuurka dalka inay ilaaliyaan ahaydna inay dastuurka dalka ilaaliyaan dastuurka waxa uu farayana ay u farmaan way u dhaarteen dalka diinta iyo dastuurkaba dadka diinta iyo dastuurkaba way u dhaarteen waxaan leeyahay marka dhaartaas fuliya waxa dastuurka uu qabo fuliya waxa dastuurka idin farayo muxuu ahay fuliya waajibaadka iyo maxaanku irahdaa awoodaha dowladnimo muxuu ahay tixgeliya ee sharciga ku salaysan iyo waqtiyadaada intaas waxaan rabaa rajo wanaagsan ayaa maanta galabta afurkan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto soo muuqatay aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayaa 9 bilood ka hor ayay ahayday markii aan ku baaqnay in dalka doorasho uu aado siyaasadda doorashada laga hadlo laga heshiiyo wada ogol lagu saleeyo anoo tixgelinayay waay qadarinayayna kuna baaqayay waayo aragnimadeyda iyo duruufaha dalkeena Soomaaliya maanta uu ku sugan yahay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in badana waxaan dhahay wadada lagu socdaaya ha laga leexdo bila Soomaaliya shirar ka soo jireen teendhadii joogaan caawa waa ku faraxsanahay in teendhadii lagu soo noqday intii aanan sidii aan sheegay aanay hadalka intii aan ka baqay aanay dhicin oo ahayd anagoo boorsooyin si xirxiranayno dibadda si socon aan la arag waxaan leeyahay intii intaa ku taliday iyo intii hore u qabtayba ee ra'yigaas qabtaba aad iyo aad u mahadsanyihiin dadaa mar hore fahmay qabay haddana wanaagu mar kasta oo qofku uu qaato lagama soo wanaag daahid ma laha expire-na ma noqdo walaalaha kalena waxaan leeyahay adikana sidoo kale waad garateen maanta marka waxaan leeyahay loo noqdo caqligu ha shaqeeyo madaxweynaha muxuu muddaxileedkiisa dhamaadayna ha garto intaas odaytinimada inta u dhiman sharaf iyo karaamo iyo heybad ha ku qaato go'aanada maanta la qaatay go'aano masiiro aad u fiican waaye maalin ay intaan ka macaayeen ka qiimi badnaayeen in la qaata ay ahayd waa jirtaa laakiin haddana weligeed ma soo daahdo waana ku mahadsan yihiin waana bogaadinaya waxaan rabaa inaan usoo jeedo dadka Soomaaliyeed barakaca iyo qaxa magaalada ka dhacay waa ka xunnahay waxaan anagu raalli ka nahay maaha weligeed maanaan keenin weligan colaad kama shaqaynin taariikh uma lihin inaan colaad ka shaqeeyo anigu taariikhdeeda dadka Soomaaliyeed way garanayaan in badanaan waxaan ku baaqay dadka xilka iyo mas-uuliyadda loo dhiibayo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii gadaala ha la eego fursaddaasi 4 sano ka horaan mar hadalkaas aan jeediyey maanta waxaa laga yaabaa fursaddii oo kale inay soo wareegto dadka Soomaaliyeedow mar kale yaani taladu idinka qaldamin dadka inta aad u garataan mas-uul inay yihiin waxa ugu fiican oo qofka lagu aaminana uu yahay qof aamina ma jiro nidaam aamina ha jiro qof nidaamka aaminsan
dastuurka aaminsan qadarin iyo tixgelin u haya rabitaanka ummadda soomaaliyeed ilaashada. dadku ha degaan, nabadaa jirto, colaadi ma jirto. 90 loo noqonayaa dadkii meelaha ku qayli jira horaan ugu sheegay inaan 90 loo noqonaynin. anigoo ka mid ah midowga murashaxiinta iyo madasha badbaado qaranba saaxiibaday ra'yigaasaan isaga midnahay, nabadaan isaga midnahay, deganaanshaan isaga midnahay, siyaasadda in wada hadal lagu dhammeeyo kala aragti duwanaanshaan isaga midnahay, dadka in afkaartooda iyo fikirkooda lagu ixtiraamo oo aan lagu colaad inaan ka midnahay. dowladdu ciidamada amniga ah siyaasadda ha ka dayso in badan ha dhahan. intii yareedoo la siyaasadeyna dhibaatada ka dhacday maanta waa la arkaya. waa taa aan leenahay qaxa ha laga joogo dadka oo maxaan ku baraka yaanay qaxin. ciidamada amniga sida uu prime minister ku amray xeryahooda ha ku noqdaan. awaamirta dastuuriga ana ha ilaaliyaan, hana qaateen. amar kastoo aan dastuurka sharci waafaqsanayn inay diidaan ay xaq u leeyihiin ha diidaano. sida kuwa badan oo geesiyaal ah ay muujiyeen oo ay yiraahdeen maya dastuurku waxaan u qabin mana lagu xukumaayo mana yeelin. sidaas waaye sida saxda ciidamada laga rabo. waxa dastuurku qabana inay yeelaan, waxa dastuurka uu diidan yahayna inay oo ay ilaaliyaan, difaacaan dastuurka sida u dhaqangelahay. laanna dastuurku waa waxaan shalay kusoo heshiinay, aayaad munazal maaha. shalan kusoo heshiinay, haddii wax ka qalloocdaan maanta waa isu imaanayna, haddana waa ka heshiinayna. dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mar kale deganaansho, nabad iyo in ay ku kalsoonaadaan xalku inuu mar walba ku jiro siyaasadda iyo wada hadalka. madaxda siyaasiyiinta ee dalka ee heerar kala duwan leh ayagana waxaan ugu baaqayaa inay usoo diyaar garoobaan in laga wada hadlo siyaasadda, tanasul in la muujiyo, dadkeenna in loo turo, dowladnimadeena curdunka in loo turo ayaan ayagana ugu baaqayaa. nabadaan ku baaqayaa mar kale iyo mar kale. waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u mahad celiyo beesha caalamka meel kastoo ay joogaan. kuwii codkooda nagu biiriyey, kuwa nagu canaantay, kuwa nagu bogaadiyey, kuwa nagu ammaanay, intaba waa mahadsan yihiin. dhammaan waxaan u dareemayaa wanaagga soomaaliya ayay ka talinayeen. ayaguna waa mahadsan yihiin. inta dhimanna hana garab istaageen, hanala kabeen, hore ha noola wadeenaan leeh. siyaasiyiinta waxaan leehay mas-uuliyiinta xilkoodu dhammaaday ee xilgaarsiinta level kastoo ay yihiin hoos ha usoo noqdaano, caqligaa usoo noqday ha fahmaano wanaaggu meesha uu jiro. maanta caawa beej cusub oo taariikhi oo cusuba bilowday oo la rogay, beej nabadeed, beej dib u heshiisiineed, beej hore u socod, beej soomaaliya dowladnimadeeda ay hana qaadayso. ha ka ogolaanina beejkaas cusub ee la rogo qof inuu dib u rogo, ha ka aqbalina. dalkaani dimuqraadiyadaan rabnaa inay ka hadan qaato, dictatoriyadna sinaba ku ogolaan mayno. sinaba nooc kastoy ku timaado ogolaan mayno. extension nooc kastoo ku yimaado waa diidnay. haddana wada hadalku nooc kastoy ku yimaadeenaan ogolnahay. mid aan shuruud hor dhigayna iyo midaan xanibayna iyo midaan waxaynan mara inta la wada hadlayo in la isqadariyo, la istixgeliyo, la isdhegeystaan rabnaa soomaaliyey. nina ra'yigiisa inaan lagu colaadinaan rabnaa. nin walba ra'yigiisa inuu qadarin leeyahay in loo qiraan rabnaa. aflagaadada iyo caayada kuma jirto siyaasadda. ballamaha beentaa kuma jiraan siyaasadda. ballanka bixidda kuma jirto siyaasadda. cabsigelinta iyo tahdiidaadka kuma jiraan siyaasadda. ka mid maaha. mustaqbal ummadaluma nin caraysan oo ciilan oo cuqdad qabaayo ummad ma hogaamiyo. ummadda soomaaliyeed hambalyaan leeyahay dhammaan. afur wanaagsan, nabadaasaan ugu hambalyeynayaa. guul ayaan leeyahay dhammaantiin. intii maanta wixii dhacay mas-uulka ka aheedna mar kale iyo mar kale waa mahadsan yihiin aan leeyahay. aad iyo aadaa u mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.